haddii aynu inagu isdillo ilaahay kama caabudi karno kama cabsan karno marka hadafkii oo ahaa maqsadkii shareecadu ay u timid arintii daruuriga ahaa ee shareecadu xaqiijinaysay ee ahaa in la badbaadiyo ruuxa muslimka naftiisa ayay ka hor imaanaysaa khilaafku ayuu ka hor imaanayaa colaadu arinta marka in la joojiyo waa waajib arinta in la joojiyo waa waajib إلهي وحليه سبحانه واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إلهي وحليه وإلهي كعب صدا إذن كدحدين وحي خلاف مشكلة إذن كدحدين صوك لا دحق لنا إصلاحية أو حلية أو دمية وأمر إلهينا أطيعا هدي آد مؤمنين تهين وحيننا هيداد مسلمين أو مؤمنين إنا إنو إسدلك تشوشينو أو إنو كوضا هذا الله أو أن هشينو أو أن أديار قرون هشيس أو أن وحوال بكبحنو أو هلي كرنو سيدا إنو هشين لهن واجبين إن أن هشينو وفرض إننا نلوشينا أدونك أيا كبت بادي مدينا آخرنا ويكوبت بادي نبض بين أباهن هاي نبض أن كشقينو قف ولوبا نبض روحي كشقيو ميزانك آخر أيو إلهي كودري روحنا علادها كشقينين روحنا إسدلها كشقينين روحنا خلافها كشقينين إلهينا وحاوي دي سنينا إنو نوصو أوروريو عقلي نوصو عليو مصالح ذا نوكينو colaada uu naga damiyo ilaahay taasaan weydiisanaynaa waxa aad saameynaysa intan oo cuqaal ah oo culimo ah oo maanta isu timid oo waxaan ka hadlaynaa uusan ahayn inaan ummadeennii aan horumar u horseedno ay tahay inaan dhiigoodii kala joojinno waa arrin aad u adag weeye inaan dhiig inaan kala joojinno aan ka hadalay waa arrin aad u fog weeye waxaan nahay muslimiin muslimna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay inuu noqdo qofka ugu caqliga badan dadka inuu noqdo waa kayisun fatin waa qofka ugu degdega badan xagga maxay tahay haleelka umuurta kulligeed qofka ugu degdega badan inuu noqdo weeye waa qof mar walba ka shaqeynaya khayrka u horseedaya ummadda inuu ahaado weeye qadiyadaan u fadhino suurad baa min awwaliha ila aakhiriha aan wax kale ka hadlin baa jirta quraanka suurat al-hujuraat kulligeed waan wada aqrinaa marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala si sharaf badan buu inoogu dhawaaqayaa marka wuxuu yaa ayuha alladina aamanu wa tashriif ummadan la tashriifinaya weeyaan kadib baa ta'diib laynoo samaynayaa kayfiyadii aan nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ula tacaamuli lahayn bacda mamaatihina sunnadiisii aan ula tacaamuli lahayn aan u noqon lahayn kuwa ilaahay ka cabsada ikhtibaar in layna siiyaa maxayda maaragtay ayaa laynoo samaynayaa ruux walba waxay dantu ugu jirtaa kulligeen inagoon mid laga reebaya uusan jirin dantu waxay inoogu jirtaa nabaday dantu inoogu jirtaa walaaltinimada inoogu jirtaa diinteenno inoo ilaashan bay inoogu jirtaa diinteenno maxayda maaragtay inoo faaftay inoogu jirtaa laakiin marka ay nabad la waayo dhaqaalihii baa burburay amnigii baa burburay waxaa burburay diintii baa burburtay wax walba oo dhan baa inaga burburay ilaahay marka ilaahay caqliga inoo soo celiyo
ilaahay waxaan ku weydiisanaynaa dhammaantayo inaad qalbigooda isu hagaajiso. dowladda Jubbaland run ahaantii shirka hadda aan u fadhina wax badan ka soo qaaday iyo culamaa u diinka reer Jubbaland run ahaantii waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin qaabkay u daadihinayeen dhibka socday oo calaada ah oo laba beelood walaalo ay in badan ay juhdi ku bixinayeen insha Allah taala inta kadib waxaan maanta insha Allah taala aan shir dib u heshiisin halkan ay ka furayaan run ahaantii beesha Sanasoor oo ay maaragtay ay kaabayaan culamaa u diinka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waxaan insha Allah taala marka aan furayaa shirka dib u heshiisinta oo halkan maanta laga furay oo ay ku dhan yihiin labada beelood oo ku dagaalamayay beesha Harti iyo beesha Ormala shirkaas insha Allah taala ay soo agaasimeen beesha Sanasoor oo ana ay doorteen gudoomiyaha guud insha Allah taala daadihintiisa waxa insha Allah taala marka hore aan Allah taala ay nooga dhamaata si wanaagsan oo Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay qaabka hadda ay u socdaan insha Allah taala aan wax u joojin hadu Allah idmo waxaan marka insha Allah taala aan rabaa inaan ka hadla dhowr nudqa ujeedada ama hadafka shirka insha Allah taala waatan horena u sheegay awala marka hore waxaan leeyahay waa in la helaa nabad waarta lana joojiyaa dhiigga walaalaha ee macna darada ku daadanaya marka hore waa in la helaa nabad waarta lana joojiyaa dhiigga walaalaha ee macna darada ku daadanaya ثانيا waa in wixii dhib ah oo dhacay looga wada hadlo si qoto dheer waa in wixii dhib ah oo dhacay looga wada hadla si qoto dheer oo waafaqsan si qoto dheer isla markaana waafaqsan shariicada islaamka isla markaana waafaqsan shariicada islaamka tan saddexaad wada noolaasha iyo isdhexgal rasmi ah waa in la helaa tan afaraad waa inay u hoggaansamaan labada beelood beesha Ormala beesha Hartay guddiga reer Sanasoor iyo culamaa u diinka kaabayay oo insha Allah taala u istaagay inay xaliyaan khilaafka muddada dheer soo socday ilaa 3 bilood insha Allah taala waxaan ballan qaadaynaa haduu alla idmo annaga oo reer Sanasoor ah iyo beesha annaga oo reer Sanasoor ay culamaa u diinka beesha Sanasoor iyo ayadoo kaabaysa culamaa u diinka waxaan ballan qaadaynaa inaan dhexdhexaad alla ka cabsi iyo ay insha Allah taala inay arintaas u ballan qaadaynaa haduu alla idmo insha Allah taala hadalkeeda intaasaan ku soo koobayaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo ay ugu horeeyaan dadkii dadaalka soo bixiyay ay kamid yihiin culamaa u diinkii Soomaaliyeed reer Jubbaland oo ku soo jiray arrinkaani muddo 6 bilood ah xaqiiqiyan wax walba waxay suurta galaan xilligu Ilaahay subhanahu wa ta'ala suurta geliyo kulli qof nabad raadiyay hadduu helana wuxuu leeyahay nabadda u dhalayana wuxuu leeyahay ajir hadduu waayana ajir buu leeyahay kulli waxaan rajaynayaa ayaga markasta insha Allah taala ajirkoodii ma dayacmin Ilaahay agtiisa inay ka haystaan baan rajaynaynaa inta kadib waxaan u malaynayaa walaalayaal waxa meesha la isugu yimid waxay tahay in dhiiga daadanaya dadka walaalaha ah ee la joojiyo gobosha waxa dhigay
beesha Saransoor hadafka ay u dhigtay waxay ahayd dhibaatada jirto oo ka dhaxaysa labada walaalo oo deegaanka oo dariska ah oo wada nool in nabad loogu soo dabaalo dhiigoodana si macna la'aan uusan ku daadanin. waxaa kaloo salaamayaa beesha Saransoor ee soo qaabisay shirkan eena go'aansatay ilaa uu ka dhamaanaya wax alla wixii ku baxay oo dhaqaale ah iyo nidaamkiisa inay iyada dhabarka saaratayna waan u mahad celinayaa. waxaan kaloo u mahad celinayaa bacdallaahi labada beelood ee walaalaha ah ee na soo ajiibay ee aan markii hore guryahooda qof ugu tagnay ee gooni aan si gooni ula soo hadalnay oo na soo ajiibayna waan salaamayaa waana mahadsan yihiin. waxaa kaloo salaamayaa culamaa diinka oo doorkooda uusan meesha ka maqnayn oo wax badan soo waday hawshaana waan salaamayaa. salaan kadib waxaan rabaa walaalayaal waxa waaye dadka waxa dhimanayo iyo waxa dhaawacmaayo iyo waxa macallay musiibada ay ku dhacayso horta waxa qadaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadartiisa ha ku dhacdo laakiin shaydaan askale. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inma yuriidu shaydaan an yuqi'a baynakum al-'adaawata wal-baghdhaa. waxaan u saarinaynaa ninkii odigaha ibliisan horta u saarinaynaa wixii dhacay asaga ayaa mas'uuliyadeeda iska leh. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu raali ka yahayna ma aha. waxaa kaloo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan ajiibitaanka ay labada beelood soo ajiibeen beesha walaalahood ee Saransoor goosh ay u dhigeen. waxaa kaloo idin ballan qaadaynaa wixii meel alla meeshay gaarto iyo shir koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad iyo kan boqolaad ilaa ay shirka uu ka soo gabagaboobo wax alla wixii fan ah ku bixi lahaa iyo dhaqaalaha ku bixi lahaa inay reerkaas isaga tashteen inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayeen aysan riyaa ka ahayn. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'adiman. ninkii dilo qof mu'min ah kasna u dilo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri jazadiisa waa jahannamo. tan labaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay inuu ku waarayo. tan saddexaad Ilaahay wuxuu noo sheegay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u caroonayo. tan afar Ilaahay wuxuu noo sheegay inuu u diyaariyay cadaab cadiim ah. nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu noo sheegay qof muslima dilkiisa ninkii kaga qayb qaatay ishaaro kaliya ninkaas dil kaliya inuusan Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qiyaamo uu imaan doono asaga oo lagu qoray aisan min rahmatillah waa midkii Ilaahay naxariistiisa ka qoostay asagoo wajiga uu qoran tahay kii rasaas ku bixiyay kii dhaqaale ku bixiyay kii fan ku bixiyay maalinta qiyaamo wuxuu imaanayaa asagoo wajiga uu qoran tahay aisan min rahmatillah kaasi waa kii Ilaahay naxariistiisa ka qoostay kan dhaqaalaha ku bixiyo qof waliba Ilaahay inuu tooba keena qof waliba qofkay ka dhacday Ilaahay uu tooba keena beeshan Saransoor waxay gogoshaan u dhigtay walaalaha in badan bay dagaalamayeen waa mataqaanaa dagaalkooda wax badan culamaa diin iyo dhaqanba uu ka soo qayb galay wixii way dhammaan waayeen inaan bal anaga isku tijaabin hadii Ilaahay idma hayo oon dhaxgalno annagoo la kaashanayna culamaa diinkii hore u galay ee u dhabar adeegay ee duurka u galay oo mataqaanaa wax badan soo maray inaan mataqaanaa iska kaashanno hawshan Ilaahay idinkiis aan ku guuleysano. waxaa kaloo idin sheegaa beeshan hadda gogosha dhigtay ma ku raadinayso magac kuma raadinayso masab kuma raadinayso dhaqaale kuma raadinayso dawladna lacag kagama rabto hay'adna kagama rabto dhaqaalaheeda iyada wadata waxayna ku rabtaa inay ku bixiso islaax baynanas ay rabtaa inay ku bixiso. waxaa kaloo idin sheegaa bahdan intaan idin ka maqneen maalinkii digniinta mataqaanaa ergada la idin soo diray labada beelood ba loo soo diray way ogyihiin inta ka soo wareegtay way ogyihiin inta waxaan anagu ku jirnay intaan niman kitaab marin kuma jiro kitaabaan ismarin anaga inaan xaggana u jeesanin xaggana u jeesano sida hadda aad u fadhidaan oo anagana u fadhino inay daacad naga tahay oo dhaar ku soo marnay baan idin sheegaynaa marka hore kadib waxaan rabnaa anaga waxbaa noo dabayaala shirkan waa soconaa inta Ilaahay gaarsiina waa gaaraynaa waxaan rabnaa dib u heshiisiinta waxaa ka horeeya in markuu ugu horeysa haddii qofku uu dhaawacmo waxa kale oo u baahan yahay waxa ay dhig joojin u baahan yahay waxa la rabaa dagaal hadduu dhaco waxa ku xiga waxay tahay in horta markuu ugu horeysa xabad joojin la sameeyo markii xabad joojintaas lagu dhawaaqo ee miidiyaha maanta ay gasho haddii Ilaahay idmo fadhigan waa inoo ballaaran yahay
haddaanan kala dhiman waa wada joognaa laakiin marka ugu horraysa waxaan rabnaa in xabad joojin lagu wada dhawaaqo. ehelow warkeenna wuxuu ku saabsan yahay wiilasha sida gardarrada ugu dhammaadeen duleedka ku simaaya waan ka xunnahay 100%. Soomaalida waxay leedahay waxaa dagaalahaya coormale iyo harti baa dagaalahaya baa la leeyahay. annaga cidna sheegaysa ma laha. waxaan u malaynayaa meeshaas 40 wiil ama 50 wiiloon ama abti u nahay ama aan adeer u nahay kuwa annaga hadda ibtaayna ka soo dhacay ka fiicnaayo labada beelood ay kala dhaleen mid haddaad milkaas maxaad u disha dhahana uu leeyahay ama harti baan dilay ama coormalaan dilay aa ku dhintay meeshaas aad iyo aadaan oga kululaanay dad maalin walba isla noolaan nahay saddexdaayna meel isla joogo geedaha hoostooda isla harsado dawiyaha isla cabo isla noolaan nahay kana turjumi karo waxa ay isku haastaan haddii aan dhabti loogu kaco si dhab ah nooga turjumi karnaa waxa oo ay isku haastaan haddii nala raaco ama noola sheego farta noola geliyo waan ka turjumi karnaa sidaas awgeed inaan gaabsanno gabanno aan isku fiirino 100% aaday noola xumaatay. ehelow maanta fadhigeenna waxay tahay in aad nala qaadataan waxaan wadna waa xabad joojin xabaddii in la dhigo xisaabtan aan isu keenno khalad iyo sax aan isu keenno aan wada xisaabtanno aad naga ogolaataan xabad joojin waxaan wadnaa xabad joojin ehelow dhiiggaasayto mid faa'iido leh ma aha mid farax leh ma aha meesha aad ku nooshiin dhammaantaan iyo ilaahay ummaddiisa oo dhan waa ina wada deeqdaa waxaad isku dilayseen ma naqaano waxaan rabnaa codsi inaad naga ayidaan 100% labadiina meelood ehelow tolow walaalayaalow sida islaamnimada leh waxaan codsanaynaa xabad joojin aan ku wada xisaabtanno waxba lama hambaynin wax war ah oo la hambeeyey culamo hadday noqoto iyo haddii muxuu ahay odayaal noqdaanba waxba lama hambaynin wixii kale waxay noqonayaan waa iska warbadi waxaan rabnaa marka waqti aan ugu socdo haddii ilaahay idmo arrimihii iyo barnaamijkii meesha aan u imaanay inaan si hoose usii gudagolno ilaahay idinkiisa warka aan meesha u imaanay iyo arrintaan u fadhinna ilaahay ha nagu guulaysiiyo saa'itul ijaabana allah ka dhigo ilaahay subxaana qaadiraay waxaan ka baryaynaa waxaan u fadhinno wax ilaahay uu naga aqbal allah ka dhigo wasalaamu calaykum waxaan rabnaa walaalahayn labada garab beesha harti iyo beesha coormale hore bay noola qaateen nabadda inay nagala shaqeeyaan waxaan mar labaad ku celinayaa oo aan codsi ku dheehayaa in ay mar labaad nagala qayb qaataan nabaddii ay shalay nala qaateen inay mar labaad nala qaataan aan ugu ta'kiidinayaa beesha saransoor oo shirkan daadihinaysa culima aw diinka muddo badan ku soo jiray ma una soo dhabar adeygay labada beelood oo maaragtaa xurguftu ka dhaxaysay oo dagaalku ka socday dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu intaa kadib kulli ummadda halakan isugu timi oo islaamka ah oo maslaxada u timi kulli waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu dembi dhaaf weyn siiyo intaa kadib labadayada beelood oo dirirayay waxaan kula talinayaa waa isku dhiboonnay dhibaato arlada ka dhacday islaam baa maanta ina dhex fadhiya islaamkaa ina dhex fadhiya aan u dhega nuglaano aan nabadaynu qaadanaana innagay dan inoo tahay waxa dadkaasoo dhan u xakaarayaana waa innaga danteena marka waxaan rajaynayaa in ilaahayna garansiiyo labadayada qoloba aanu sida ugu habboon isu dhiibno anigaa bilaabaya marka waxaan ku bilaabayaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu aqbalay nabadda xabad joojinta walaalnimo soo celinta dagaalka tanaasulka nabad qaadashada intaasaanu aqbalay haddaanu beesha hartinahay walaalahayana waxaanu ka filanaynaa sidoo kale
waxaan rabnaa inaanu u dhagan nuglaanno nabadda u dhagan nuglaanno walaalahana dhexdhexaadinaya hadday culimaa u diin yihiin iyo hadday beesha saransoor yihiin iyo hadday cid kaloo ku soo biidhaba noqoto waxaanu rajaynaynaa inaanu u dhagan nuglaanno wax shuruuda aanan ku xirin wax dhibaato ah aanan ku xirin aanu sida ugu habboon nabaddaa ku qaadanaan intaasaan idin soo gaarsiinaynaa intaa ilaahow iiga markhaanti ahow ummadda islaamka ahay markhaanti iiga ahaada maanta marka anigu insha allahu intaasaan ku soo gaabinaya soomaalidu waxay tidhaa hadalka la yidhi miyaa la naaxinaya annaga haddaan nahay beesha harti hadalkii cabdilaahi bile yidhi way noogu dhantahay waxaanu nabadayntaa la soo jeediyey lalaga codsaday ummadoo dhani isugu timi ee la doonayo in la baajiyo khasaaraha halkaa ka dhacay ama haddanba laga shaki qabo inuu soo noqdo oo wax badan soo noqnoqday oo horay culimaa udiinka iyo ummadda islaamiyeed ay isugu dhabar jabiyeen oo ku dadaaleen inay baajiyaan baaqana weyday maantana intani isugu timi waxaanu qaadanay anigoo ku hadlaya afka beesha harti xabad joojintaasaanu qaadanay xabad joojintaasaanu qaadanay waa soo dhawaynaynaa waxa weeye dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta haddii anagu aan garan weynay labadayada qolo inaan heshiino oo wixii yani mataqaana nabadaynta iyo halka aanu gaadhno oo walaaladii ay garteen way ku mahadsan yihiin annaguna waa soo dhawaynaynaa xabad joojintaa waa qaadnay si daacada baanu u qaadnay waa idinka yeelay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu waxaan ballan qaadaynaa oo nolon ka codsaday oo annaga dantayna in dhiigga aanun maaragtay joojinno oo maaragtay xabad joojinta nolon soo dira wax badanoo lama weydiin ninku waxaa la weydiiyaa la rabaa inuu ka jawaab maahina waxaa ka dambeeya haddana waxuu ku leey wixii la weydiiyo marka annagu xabadda inaan joojinno aan ballan qaadno intaasaan ballan qaadnay ilaahayna hanala ballan qaado wixii ka dambeeyana waxaan diyaarunaha wixiina loo soo jeediyo inaan iyagana ballan qaadno tanoo kaleeto anu ku raacsiinno waxaan si gaar ugu mahad celinayaa beesha gogosha dhigtay walaalahooda dhibaatadii iyo wixii ka dhaxeeyay inay dhexdhexaad ka noqdaan isu dhabar jabiyay ayagana si gaar ugu mahad celinaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalayaal waxaan aqbalnay oo aad iyo aad u soo dhawaynaynaa xabad joojin aan shuruud ku xirayn anigoo afka beesha cormal ku hadlaya beesha cormal waxay ummaddu ku taqaanay beel nabadeed shaydaan baa dalkaa galay dhibaato badan baa iska timid waxaan u malaynayaa kuwa aan dagaalamayno walaalaanahay dadka waa isugu dhownahay dagaalka aan diranay cid wax ka faa'iido male iyaguna waxba kama faa'idin anu waxba kama faa'idin waxaa marka si shuruud la'aan aan soo dhawaynaynaa xabad joojintaas shalay dowladdaa ku dhawaaqday iyadoo labadeena nala dul saaray codna aan nala siinin maanta annagoo xura in aan dadkeena nabad u qaadno walaalnimo aan u qaadno isjeceyl iyo gacmo isqabsi iyo caan isulis baa awal iskula joogeen aan u qaadno ayaan soo dhawaynayaa waxaa kaloo mahad iskale ilaah baa mahad leh beesha saransoor intaa kadib waxaa sharuud la'aan ah xabad joojinta inaan qaadanay walaalahayga waa isku dambownay wax dhib ma ogiye dheefka ma aanan qaadin dhibaato badan baa naga dhacday insha allahu ilaahay aan soo celino mataqaana nagu soo celino nabadda mataqaana nabad waarta aan helno ayaan ilaahay ka rajaynayna xabad joojintaa waa qaadanay ilaahay idinkiis warkaayagana waa cad yahay ilaahay hortiis adinkana markhaati inaad ka noqotaan maanta markhaati inaad ka noqotaan ilaahay dartiis inaan xabad joojinta u qaadanay wax dambana inay dhaceen ilaahay baan ka baryaa wabilaahi towfiiq waana mahadsantihi